متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها كن متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما أنت وحن كحلينا صفوينك وناكسناء قلبية لجسوا جيتو تاسع وجهك فرن أما دولة عدينتا أما وجهك فرن نبيقول إنه غور ما يوحى ويلي إنه نوناك قرين متكين هذا إنه ولكن قابل وجه فرن حديثك وحن كفائدنا إنه يهي وناك إن ولالك قابشو وجه فرن أما دولة عدين. waxaa kaloo uu nebigu yidhi wanaag kasta waa sadaqo. wanaagga waxaa ka mid ah walaalkaa oo ku qaabisho weji furan. nebiga dhoola caddaynta waxa uu ku tilmaamay sadaqo. sadaqadana wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam u dhoweeya kiina xanuunsan sadaqo. sadaqada wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ka ilaalisaa cadhada alleh. hadallada laga yidhi waxaa ka mid ah cabdillaahi ibnu mubaarak waxa uu yidhi akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah wejiga furan. akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah inuu u sheekeeyo saaxiibkii isagoo dhoola caddaynaya. waxaa kaloo la yidhi wejigaaga furan kelmadda wanaagsan dadkaa kugu jeclaanaya. faa'iidadan ka helayno wejiga furan waxaa ka mid ah inay dadku inagu jeclaanayaan, inay ka mid tahay sadaqada. waxaa tusaale inoogu filan dhoola caddaynta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siduu u ahaa mid weji furan. asxaabtoo ka waramaysa waxay yidhaahdeen nebiga weligay manu arkin isagoo cadhaysan ama weji cabbuusa leh. markastii oon aragno wejigiisa dhoola caddayn baa ka muuqan jirtay. dhoola caddaynta aad walaalkaaga muslimka u dhoola caddaysaa waxay ka mid tahay sadaqada. sadaqadeenna maanta halkaa haynoogu joogto.